kulan waana khiyaartana daawataa meel walba aad joogto waxaad kusoo dhawaataa janaal kale waaye films oo hadaanoo kale kusoo gudbiya muuqaalada ugu dambeeya ee la xiriira arrimaha Bollywoodka iyo kuwa Tollywoodkaba. warbixinteena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa taariikhda jilaaga reer Tollywood ee Vijay Deverakonda oo hadda ka mid ah jilayaasha ugu caansan uguna saameynta badan ee filimada ka muuqda. waxay idinkaga haynaa xogooyin muhiim ah oo ku saabsan wax walba oo aad ugu baahan tahay jilaagan. markuu jiray 25 sano waxaa laga xiray bartiisa akoonka oo ku lahaa bankiga maadaama uusan ku jirin xitaa ugu yaraan lacag dhan 500 rubi. wuxuuna halgan noloshiisa ku jir inta uusan filimada si weyn ugu lug lahaanin, mana ahayn dooqa koowaad ee filimka Arjun Reddy. inta uusan soo galin film jilista wuxuu baranayay jiliinka. wuxuu sameeyay door yar oo nolosha ah waana mid qurux badan kaas oo ahaa Shikar Kamula movie. wuxuuna ku soo caanbaxay filimkii soo baxay 2011 ee Novella. wuxuu director ka noqday film yar oo soo baxay 2014 waxaana la dhahaa Madam Mirena. wuxuu 2015 kala soo muuqday filimka Yvette Surmanyam Jilaaga Nani, wuxuuna ammaan ku helay doorkaasi. filimkiisa ugu horeeyay oo hogaamiye ku noqday wuxuu ahaa Beli Jobula, wuxuuna ahaa mid guul gaaray. wuxuuna hal habeen ku noqday xidig weyn markii uu sameeyay filimka Arjun Reddy. wuxuu ahaa mid u samaysan dhaqan waxaana lagu ammaanay inuu ahaa mid xag jir ah iyo geesinimo ku soo bandhigay filimkaasi. wuxuu ku guuleystay atooraha ugu wanaagsan ee Filmfare qaybta Teluguga ah. wuxuu kula ka shaqeeyay filimada ah Mahanati, Geeta Govindam, Nota, Taxwala iyo World Famous Lover. wuxuu 2019 ka soo muuqday majalada caanka ee Forbes wuxuuna noqday dhalinyarada ka yar da'da 30 jir ah ee ugu caansan, wuxuuna ahaa isla sanadkaas mid loogu raadiska badnaa. wuxuu samaystay shirkadda filimada maalgelisa wuxuuna soo saaray filimada Meku Mathrem Jepta. wuxuu kaloo sameeyay shirkad dhalinyarada ay reer Telugu iyo Andhra Pradesh awood siisa si ay wax u qabsadaan. wuxuu dhawaan bixiyay lacag dhan 1.3 karoor si ay wax loogu qabto cudurka coronavirus. wuxuuna taageerayaashiisa sugi laayihiin filimka Fighter oo uu la wado xidigta filimada ku cusub ee Ananya Bande, waxaana director-ka ah Puri Jagannath. intaan kusoo xirina muuqaalkana maanta aan kaga hadlaynaa taariikhda kooban ee xidiga Vijay Deverakonda oo ah jilaa Tollywoodka caanka ah. haddii aad ka heshay warbixintan la wadaaga asxaabtaada.